adduunyadan indhoofiyo ninkii degan dhulkii hooyo waxaan dhegaystayaal guud ahaanba meel boodin joogtaan waa mar kale iyo barnaamijkeennii jimicsiga jimcaha barnaamijkeena jimicsiga jimcaha oo toddobaadkan xambaarsan qodobo aad iyo aad u xiiso badan waxaanu ku eegi doonaa 10 arrimood oo muhiim u ah lamaanaha jacayl wadaaga ah ee xiisaha badan isku xambaarsan farxadna ku dhammayn karaya guurka ay damacsan yihiin mustaqbalka in ay nolosha ku wadaagaan qodobadaasi iyo qodobo kale oo si tifaftiran aanu idinkugu soo diyaarinay aynu barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa ee ka reebin dhinaca iyo kaalimaha suugaanta adduunyadan indhoofiyo ninkii degan dhulkii hooyo dergiyo nin dhowr qaday dergiyo nin dhowr qaday Esigiyo labood baa hawli kama dhamaatay qof waliba wasii dhibay dhafuurkay ku taala Esigiyo labood baa hawli kama dhamaatay qof waliba wasii dhibay dhafuurkay ku taala ana dhaawaygi jacayldibkaasaan dhedhedheeliyay ana dhaawaygi jacayldibkaasaan dhedhedheeliyay kuguma dhaafin hadday saadu dheelidoy amba kuguma dhaafin hadday saadu dheelidoy maxaa dhacay dhankaagay u jiiftaa dhaliishu ma sahlana mana wanaagsana barnaamijka iyaga ayadun qodob la xiriira dhaliisha lamaanaha ku maqli doontaane codka macaan ee boqorkii codka Soomaaliyeed Maxamed Sulaymaan Tubeec ayanu intaasi uga talaabayna waa tahay aynu si anbaqaadna ee barnaamijka iyaga jimicsiga jimcaha sidee lagu gaari karayaa guur farxadi ku dheehan tahay waa arin aan muddo dhowr jeer ah falanqaynay isla markaana su'aasheedu ay tahay mid soo noqnoqota oo aan quluubta lamaanayaasha ka dhammaanin haddaba waxaanu eegi doonaa maanta oo barnaamijka ku soo qaadan doonaa 10 qodob oo guurkaaga ka dhigi karaya mid farxadi ku dheehan tahay qodobka ugu horeeya haddii aynu eegnana waa waqti kala qaata in aad wada joogtaan 24 saac caafimaadka kuma jiro adiga iyo qofka lamaanahaaga waxa wanaagsan dhowr saacadood ama dhowr maalmood in aad kala maqnaataan si aad isugu soo xiistaan waqti badan oo la kala maqnaadaana dhinaca kale waxa uu sababi karayaa ama uu dhaawacayaa mustaqbalka guurka aad markaasi ka leedihiin qodobka labaadna waa isfaham abuura waa labada lamaane ayaynu la hadlaynaaye waa inaad isfahamtaan oo aad qaasatan aad fahamtaa dabeecadda qofka Soomaalidu waxa ay ku mahmahdaa waano abuuris baa ka horeysay marka inta aan la is eedaynin waa in la isbartaa oo la fahmaa dabeecadda dabiiciga ah ee qof walba uu Allah subhanahu wa ta'ala ku manaystay qodobka saddexaadna waa khilaafyada degdeg ku xalliya
nebiyullaahi moxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee ayaa laga wariyey in uu furay in xalinta khilaafaadka aan lala daahin islamarkaana si degdega isla daqiiqadiiba lagu xaliyo. haddaba hadalka rasuulka salawaatullaahi wasalaamuhu calayh ayaa inagu filan oo tusaale wanaagsan inoo noqonaya. haddii khilaaf dhaco sida ugu degdegta badan meel ha loo dhigo oo ha loo saaro khilaafkaasi. qodobka afraadna waa iska ilow wixii lasoo dhaafay. wixii dembiyo ah ee aad gaysatay ilow oo sheeko ha ka dhigin, hana uga sheekaynin lamaanaha noloshaada ee aad guur wadaaga tihiin markaasi. qodobka shanaad oon barnaamijka sidoo kale ku eegi doonana waa cid khabiir ah ma jirto. bini aadamka ilaahay subxaanahu watacaala uma abuurin inaysan qalad samaynin. sidaa daraaddeed waa inaad ogaataa in xaaskaaga ama sayigaagu ama lamaanahaagaba uusan ahayn khabiir ee xusuuso inuu yahay bini aadan ama insaan daciif ah oo habeen iyo maalinba qalad geysta. wahagaag dhegaystayaal, weli barnaamijkeena jimicsiga jimcaha aynu ku guda jirnaayo. goordhow qodobo kale oo xambaarsan arrimaha lagu gaari karayo guurka farxadda leh ayaynu idiin soo gudbin doonaaye. iminkase aynu ku yara nasano dhinaca iyo kaalimaha suugaanta. mar kale iyo jimicsiga jimcaha aynu sii ambaqaadaynayo. qodobka lixaad ee aan barnaamijka ku eegi doono ee qusaya sida lagu gaari karayo guurka farxadda leh ee lamaanaha jacayl wadaagga ah ay ku taamayaan ayaa waxa uu yahay jacaylkaaga muuji. tani waa mid aan ka liidano haddii aanu nahay Soomaalida. waa in aanu muujinaa jacaylka iyo mahadnaqa lamaanaheena. waa in xaaskaaga haddii ay cuntada wax ka qalado aadan cambaaraynin, balse aad dhahdo macaanto, aad bay u macaan tahay cuntadaada. waa niyad dhis. markii aad wax wanaagsan samaysana sidaa aad maantay u ammaantay xaaskaaga ayay adiguna ku ammaani doontaa. qodobka toddobaad waa xalli dhibaatooyinkaaga. wixii adiga dhibaato qaasa kugu ah waa in aad ka qaybgelin lamaanahaaga.
inkastoo ay wanaagsan tahay in aad u bandhigto haddii ay xalintooda ka qayb qaadan karayso. qodobka 8aadna waxa uu ina farayaa ha isdhaliilina. dhaliisha badan waxa ay abuuraysaa kala shaki iyo hoos u dhac xagga maskaxda ah. xaaskaaga ammaan halkii aad ka dhaliili lahayd, iyaduna sidoo kale ammaan midda ka muhiimsan ayaa laga sugayaa. qodobka 9aad muranka ha ballaarinin. way dhacdaa in labada qof ay wax isku qabsadaan balse ay keenaan meesha wixii dhacay sanooyinkii hore. arrinta markaasi khilaafkeedu taagan yahay oo keliya xooga saara ee yaanan la soo faagin qabriyadii hore. qodobka 10aad ee ugu dambeeyana waa kala shakiga lamaanaha aalaba soo kala dhexgala. ogaada shakigu waa bilowga burburka guurkiina iyo noloshiina jacayl ee aad ku taamaysaan. codka naxariista leh ee fanaanada codka dahabiga leh luul jaylaani cali maamaluula ayaynu ku soo afmeeraynaa barnaamijka iyaga jimicsiga jimcaha. tan iyo kulanti dambe waa saaxiibkeena cabdirasaaq cabdulaahi maxamed najcalood ku dhaafaya sidaa iyo nabadino. ayaan adaan ku imide amaanaan heli waaye